taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa waxa uu maanta tababar uga furay dugsiga tababarka ciidamada booliiska Soomaaliland ee Mandheera 130 askari oo noqonaya dufcadii 30aad loona bixiyay dhamayse ugu horreynba waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay tababarkani gaashaanle dhexe Cabdi Cali Xayd oo ah taliyaha dugsiga tababarka ciidamada booliiska Soomaaliland ee Mandheera difcadani waxa ay ku shaqeyn doonaan barnaamijka ama taqaanay dugsigu uu leeyahay waxaana lagu tababari doonaa tababaro kala nooc ayaa la siin doonaa mid waxbarasho la siinayaa mid gaardiga la siinayaa mid discipliinka aba la siinayaa mid waxa la siinayaa ma taqaanay training ah dhamaan intaaba waa mid ay u baahan yihiin ciidanka booliisku aanu la'aantina ka maarmi karin sababtoo ah trainingka tactics waxa loo siinayaa haddii ay xaaladaga timaado si ay uga qayb qaataan oo ma taqaanay waa ciidanka qaranka ee ma taqaanay ama ciidanka militariga waa ciidanka labaad ee barbar taagan waxa kale oo ciidanka booliisku ay halkan diyaar ugu yihiin in ay bartaan ama nabadgelyada si loo ilaaliyo oo shaqadii booliiska ay ku bartaan shuruucda aanu dhigi doono kolley mid class iyo mid ma taqaanay iyo garoonbo way u qaybsan tahay dhinaca kale hoggaanka tababarka ciidamada booliiska Soomaaliland gaashaanle sare Maxamuud Ducaale ayaa waxa uu ka warbixiyay faa'iidada uu tababarkani u leeyahay waa maalin aad ka guuteen xaggii shicibnimada oo u guuteen xaggii ciidannimada waxaan ilaahay idin bagayaa inaad noqotaan kuwii anfaca ummadda waxaan idinku waaninayaa inaad qaadataan tacliinta halkan la idinka siiyo waayo waa tahadhow idin anfacaysa ummaddana anfacaysa dalkana mustaqbalkiisa anfacaysa waxa loo baahan yahay kuwiin in la bedelayaan ka soo baxdaan idinku gabagabadiina taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo kalkaasi si rasmi ah uga furay tababarkaasi ciidamada ayaa waxa uu soo jeeday ciidamada kalmada isugu jira dhiirigelin dardaaran iyo waliba gubaabo wani walo bilayso halka soo galay waynu fahansanaado qaabka maxbuuska oo biga loo keenayo qaabka loola dhaqmayo markay halka ka gudubto faraha sida looga qaadayo waxa weeye halkan marka haddii la yiraahdo idin dhamaado nin waliba department buu tagi doona police kamida waxa kale oo noo qorshaysan inaan training halkan oo kale halkan lagu bixiyo dugsiga lixda lagu bixiyo Mandheera aan la idinku keenay idinko sidiina isugu duuban training kale oo gaar ah aanu idin siino maanta ay bisha soo tahay bishii 9aad 2018 dafcadda sodoraad ugu furay dugsiga Mandheera ee lixle tababarkii layla askarinimo ayaan idin furay waanu idin furayahay waxaanan ilaahay idin ka rajaynayaa inaad noqotaan kuwii dalka dadka iyo diinta maafaca salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasi kadibna taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ciidankan ay ku qaadanayaan tababarka sida maxkamadda sharciga sidoo kale waxa uu soo kormeeray taliyuhu qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsiga sare ee Mandheera عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال TV هرقيسة